waa hagaag dhegeystayaal ergo ayaad weli nagala socotaan dhowaan xubinta qiimaha xoolaha ayaad maqli doontaan markanse dadka ku nool tuulooyinka iyo miyiga waqooyi bari ee gobolka galgaduud ayaa la barayaa dhigaalka farsoomaaliga iyo xisaabta waxaana ololahan wada koox macalimiin ah oo wax ka dhiga iskuullada degmada Cadaado waxay maalmaha Khamiista iyo Jimcaha tagaan miyiga caruurta iyo dadka waaweyn ayaa ka faa'iideystay waxbarashadan bilaashka ah ee guryahooda loogu geeyay macallimiinta ayaa maalmahaas kula kulma ardayda geeda cayiman oo deegaan kasta uu leeyahay halkaas oo duruusta ay ku qaataan waxbarashadan ayaa reer miyiga ka caawinaysa inay xal u helaan caqabado ka haysta adeegsiga lacagta taleefanada la isugu diro halkaas oo xisaabaha iyo akhrinta fariimaha ay caqabado kala kulmaan warbixintan waxaa Cadaado nooga soo diray wariyaheena Cismaan Madaale reer guuraaga iyo dadka ku nool in ka badan 15 tuulo oo hoos yimaada magaalada Cadaado ayaa la barayaa dhigida af Soomaaliga iyo xisaabta waxaana ololahani wada koox dhalinyaro ah oo u badan macallimiin waxayna uga goleeyihiin sida dadka ka durugsan magaalooyinka looga saari lahaa jahliga iyadoo sidoo kalena arrintan ay ka caawinayso reer miyiga inay si fiican ula jaan qaadaan isticmaalka taleefanada lacagta laga diro oo kale ku noqotay gobolka Galgaduud kadib markii ay meesha ka baxday lacagtii shilin Soomaaliga ee 3 sano ka hor dadka ayaa duruusta ku qaata maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ee macallimiintu ay u tagaan geeda la cilaamiyay oo tuulo walba ay leedahay taas oo ay ku ballameen sida uu raadiyo Ergo sheegay gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Saal oo ka mid ah kooxda dhalinyarada ah ee u foogan barnaamijkan sida isxilqaanka ah lagu fulinayo barnaamijkan oo ay bilaabeen dhamaadka bishii September ee sanadkan ayuu xusay in agabka wax lagu barayo dadkaani sida buugaagta qalimaanta iyo sabuuradda ay iyagu ugu deeqeen runtii waxa hadda aan aad ugu guuleysana waxa kamid ah in dad aad u maaragtay daadooda u weyntaho qaarkood 60kii ay kor u dhaafeen inay hadda akhriska qoristii ka faa'iideysteen dadka dhalinyarada oo wali xoogaa un age-koodu yar yahay oo casrada hadda waxa qayb qaataan oo waxa meelaha hadda shaqada u badan hadana waxa horkacaya oo barnaamijkan si weyn ugu maaragtay faa'iiday waa dadka aan mobiladii isticmaali karin oo waxyaabihii de nolosha hadda waxa iska noqotay wixii wax oo electronic ay noqdeen marka dad badan noocaas oo daa weyn oo ka faa'iideysan waa jiraan meel kasta oo dad wax loogu dhagayo waxa ku jira dad waaweyn oo number ah oo aan yareen 8 koox ayay isku qaybiyaan macallimiintani oo ku dhawaad 40 qof ah si ay u kala gaaraan tuulooyinka iyo miyiga ay dadka wax ku barayaan waxayna kooxdiiba ka kooban tahay 5 qof kuwaas oo labada gelin ee maalintaasi kala gaara deegaanadaasi Xuseen ayaa tilmaamay in ololaha ka hor ay dadkan u sameeyeen wacyigelin la xiriirta muhiimadda waxbarashada taas oo socotay muddo 2 bilood ah dadka waxbarashadan bilaashka ah ka faa'iideystay waxa kamid ah Nuur Xuseen Geedi oo ku nool deegaanka Qansaxley oo magaalada Cadaado u jira 45 kiiloomitir isaga iyo qaar kamid ah dadka ku nool deegaanka ayaa labada maalin ee macallimiintu ay u yimaadeen casharada ku qaata geed dhinacyada laga waabay hoostii Nuur oo maqaayad shaaha iyo cuntada lagu iibiyo deegaanka kule ayaa waxa lacaga badan uga qasaareen faham darrada ka haysatay wax qoris la'aanta waxa uu xusay inay tanu tahay fursad wanaagsan maadaama uu markii ugu horeysay waxbarasho helay wuxuu ka caawisay in ganacsigiisa hadda uu horumariyo oo ku dhawaad 2 sano furaa meheradiisa oo caqabado badan ay ka haysteen xisaabaadka iyo sidoo kale diiwaangelinta magacyada macaamiisha deynta ka qaadanaysa wala la oo qaabka hore oo aniga xisaabin jiray xisaabtana waxa ay jiray waxaad inaan qof eheladiisa kamid ah ama saan ku soonahay inay raado xisaabaha ii qor waqtiga xisaaminaya xisaabtan ii dhamaystir waxa ana keenay oo Soomaali aan ka keenay wax hadda aan la dareemi kara ma yahayn wax hadda aniga iskuul oo aan waxbarasho soo maray oo markaan ka horeysay ama deegaanka aan laga hirgeliyay wala deegaanka dhanba oo wax ku faa'iidin kareen ma jirin walaal Nuur waxa uu rajaynayaa inuu ka gudbo dhibaatooyinkii ka haystay maareynta ganacsigiisa taas oo ku imaanaysa si fiican inuu u fahmo xisaabta iyo dhigida af Soomaaliga sida uu sheegay waxa uu xusay inuu xaadiro markasta halka lagu bixinayo casharada labada maalin ee macallimiintu ay la joogaan waxa weyn ba ee kordhawaan oo faa'iido aan la soo koobay laakiin hadda aan arkay inaan waxyaalo badan oo markiiba aan gaarin jirin awal in hadda wax yar ba ka bacdida aan ku sii iibsanayo si uu u gaaro isku filaansho waxa uu xusay inuu si fiican u baran doono xisaabta akhrinta iyo qorida farta Soomaaliga
taas oo ku daray inay ganacsatadoodu u arkaan muhiimad weyn waxbarashadani. cabdulaahi maxamed cali waa 60 sano jir, asaga iyo 3 ka mid ah carruurtiisa ayaa qayb ka ah dadka ka faa'iideysta waxbarashadan bilaashka ah ee guryahooda ay ugu geeyeen macallimiintani. miyiga deegaanka Xinjilab ayuu ku dhaqanayaa 120 neef oo ari ah, wuxuuna degan yahay birin barwaaqale oo ay xoolo dhaqatadu ku badan yihiin, waana sababta macallimiintu ay ku beegsadeen halka uu ku nool yahay. sida uu sheegay, 2 wiil iyo gabar da'doodu ay ka yar tahay 15 sano ayaa la bartaa dhigidda farta Soomaaliga iyo xisaabta, wuxuuna tilmaamay inay dhiirigelin u tahay in carruurtiisii asagu ay bartaan waxbarashadan kooban. inaan wax barto oo xilligaadaan wax barto waxa u go'ay lacag tursi ah u go'ay oo wili hadda waa ku dhajiraa waana baranaya hadda ladmo waxna waa ka fahmay oo carruurta maarta ku dhiirigeliyo aan ku talagalay ana u soo yeeray waxaan wax bartaa waxaan nin weyn aan noqday wax bartaa ayama noqonine marka sidaa waxa way hadda wax barashada waa u dhajiraa hadii hal ismana waa la wadayaa. Khamiista iyo Jimcaha oo ay casharka qaataan ayuu sheegay inay fasax ka yihiin dugsiyada Quraanka, sidaas darteedna ay ka faa'iideystaan waxbarashada maadiga ah. waxa uu sheegay in markii ay waxbarashada ku fiicnaadaan oo u diri doono magaalooyinka si ay waxbarasho heer sare ah uga gaaraan. macallimiintan ayaa 2 habeen oo ay ku hoydaan deegaanada ay dadka wax ku barayaan, waxa jiifkooda iyo qarashka ku baxaya cuntadooda bixiya dadka tuulooyinka, sida uu sheegay Xuseen Cali Sahl oo ah horjoogaha kooxdan macallimiinta ah. waxa uu xusay in qarashka gaadiidka ay safarka ku galaan ay jeebkooda ka bixiyaan maadaama macallimiinta inta badan ay shaqeeyaan. Ismaan Maxamed Ahmed Xasan Madaale, Radio Ergo, magaalada Cadaado.